Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh. Ku soo dhowaada barnaamijkeenii ka waran haddii. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ka waran haddii aanad seexan. Maxaa dhici doona, maxaa isbeddeli doona? Muuqaalkan ayaan kaga bogan doona. Ku soo dhowaada mar labaad muuqaalkeena maanta. Inta badan waan seexana balse isma weydiino muhiimadda ay hurdadu ina leedahay. Sida caadiga ah, dadka waaweyn waxay u baahan yihiin 7 ilaa 8 saacadood, halka dadka yaryar ay u baahan yihiin ilaa 9 saacadood. Marka aan ka hadlayno muhiimadda hurdada sida Quraanka ku cad suurad Al-Furqaan. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Sida daraaddeed hurdadu waa nimco ka mid ah nimcooyinka Eebe inagu galaday, waana waqti nasasho oo aan ka soo kabanno tacabkii badnaa ee maalinta. Waxa aan dareena hurdo marka la soo daayo fariimaha hurdada, kuwaas oo uu soo saaro jidhkeennu, waxayna u sheegaan maskaxdeena in ay daalan yihiin una baahan yihiin hurdo iyo nasasho. Sida oo kale fariimaha ka imanaya deegaanka ama goobta aad joogtid waxay ka caawiyaan jidhkeena in ay hurdo isku diyaariyaan, waxaana la soo daaya hormoonka loo yaqaano melatonin. Melatonin waa hormoonka hurdada, kaas oo uu jidhkeennu soo saaro marka dhulku madoobaado. Tusaale, waxaad in badan aragtaan ama maqashaan dadka oo yidhaahda leydhka ama korontada oo shidan ma seexan karo, sababtuna waxa weeye lama soo daayo dheecaanka hurdada wakhtiga iftiinka. Sida darteed waa in leydhka la bakhtiyo kadib hurdo la isku diyaariyo. Hormoonnada hurdada keena waxaa ka mid ah adenosine iyo melatonin, waxayna jidhka ka dhigaan mid nasta oo hurdaysan. U soo noqo ujeedka muuqaalkeena oo ahaa ka waran haddii aanad seexan maxaa dhici doona. Wiil u dhashay dalka Maraykanka ayaa haysta rikoodhka hurdo la'aanta ugu dheer, taas oo uu soo jeeday muddo 264 saacadood oo la mid ah 11 maalmood. Wuxuuna sidaas ku galay xog ururiyaha Guinness World Record. Intii uu ku guda jiray muddadii soo jeedka, wuxuu la kulmay dhibaatooyin ay ka mid ahaayeen xasuus la'aan gaaban, in uu aqoonsan waayo walxaha uu taabanayo, iyo in uu noqdo mid maahsan oo aan shaqo qaban karin. Wiilkaas oo lagu magacaabi jiray Randy, walow oo uusan la kulmin dhibaatooyin saamayn jidh iyo nafsi ahaaneed oo noloshiisa saameeya, haddana hurdo la'aantu waxay dadka ku keentaa xanuuno sida maqaar xanuun, shaqo la'aan, macaan iyo xasuus la'aan. Cilmi baadhis laga sameeyey dalka Maraykanka waxaa lagu sheegay dadka ku nool adduunka 30% dadka waaweyn iyo 60% dadka yaryar waxay ku jiraan xaalad hurdo la'aan ah, taas oo keenta xanuuno badan oo dadku aad uga cawdaan. Marka aynan helin hurdo inagu filan, waxay saamayn taban ku yeelataa habka waxbarashadeenna, xasuusteenna iyo dareenkeenna. Sanadkii 2014 taageere kubadda cagta ayaa u dhintay hurdo la'aanta kadib markii uu soo jeeday 48 saacadood oo xidhiidh ah, balse lama caddayn in uu dhintay hurdo la'aanta iyo marxalad kale sida xamaasada ama murugada ciyaarta. Sida ay caddeeyeen saynis yahano badan, muddada ugu dheer ee la soo jeedi kara waa 264 saacadood.